السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشاش عيديد ومحمد موسى أبكر آديات باون سلام يا سومالي وين ميل كستay daafaha dunida kala joogan. waxaad la dhageystaan ilana daawataan Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo maalin dhaweyd lagu caanashubay laguna caleema saaray degmada Dharkeen Geeyo ee koonfurta gobolka Sool oo uu ku caanashubay garaadka guud ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn Doolo Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo maanta ku dhawaaqay shir garaadada reer Darwiish ama dhulbahante ku marti qaaday degmada Damco ee gobolka Doolo halkaas oo laga hadli doono arrimaha iyo danta reer SSC iyo Doolo garaadada maanta taladoodu ummadan iyaga ka goodaa marka waa daruuri in garaadadu shir gaar ah oo iyaga dhexdooda ah ay yeeshaan waa daruuri garaadkana amarkiisa in la adeeco baan rajaynayaa oo garaadadu dhan ka soo qayb galaan arrinkaas waxaa laga hadlayaa danta iyo aragtida iyo aayaha iyo mustaqbalka Sool iyo Sanaag iyo Cayn Doolo ummadda ku dhaqan marka waxaan rajaynayaa inaad si fiican ila daawataan ilaa dhageystaan ballankaas oo dhici doona ama isku imaadkaas oo dhici doonta 5 bishan soo socota ee Abriil ee hadda bilaabmasa marka daawasho wanaagsan bal ila daawada garaadkii hadlaya inta kadib waxa kale oo aan jeclahay inaad la wadaago kolay dadweyne dawladda qaadatay inaan ka dhigo kolay saad ka waraysaan maalintii caleemasaarka waxaan ugu baaqayaa ama aan u fidiyo martiqaad ismada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn inay insha Allah aan martiqaadka u fidinayo goortana oo soo sheegi doono marka maanta waxay u muuqataa docma inay tahay magaalada ugu habboon ee arrintaas qaadi karta oo aan ku tijaabinay marka martiqaadkaasna ducamooy way isaaran yahay insha Allah u diyaar garooba ismadeeni oo dhan inay xaggan isugu yimaadaan laakiin sababtii ka soo galin maayo waqti waan siirayaa bisha soo socota shanteeda hadii ay ku hidmo ayaan insha Allah cilaaminay ismaduna xaggan isugu iman doonaan hadii la yiraahdo intii awoodi kartaa aan caafimaad ku saamaxo kuwa xanuunsan insha Allah iyagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu caafiyo marka taasna insha Allah ma ku haya waxaan malanayaa waa sabtida noqonaysa bisha shanteeda maalinta shanaad ee bisha soo socota waa sabtida miya hadii la yiraahdo marka taasna insha Allah Ilaahay waa idin fududeynaya talada marka fiican bay idin hayso